dowladda hoose ee degmada Gabiley ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo adeegyada arrimaha bulshada ee gobolka Gabiley waxaana uu maanta maayirka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi weheliyaan golihiisu ay si rasmi laba gaari ugu wareejiyeen ciidanka dadamiska gobolka Gabiley oo ay ku wareejiyeen gaari booyada oo ay ugu tala galeen inuu caawiyo gaadiidka kale ee badbaadada masiibada dabka ee ka shaqeeya gobolka Gabiley sidoo kale maayirka magaalada Gabiley ayaa gaari kalena ku wareejiyay waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Gabiley gaarigaasi oo ahaa rago ayaa loogu tala galay kor u qaadista iyo ilaalinta nadaafadda gobolka isla markaasna waxa uu ka mid noqon doonaa shantii gaari hore uga shaqeynayay bilicda iyo nadaafadda gobolka Gabiley waana isbedelada waxqabad ee hadda ka socda gobolka Gabiley ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi iyo golihiisa halkan runtii maanta taariikhdu tahay 29kii bishii 7 2019 waxaanu ku wareejiyeynaa laba gaari oo aan ugu tala galnay inay ka qayb qaataan adeega ay dawladda hoose u hayso dadweynaha reer Gabiley gawaaridaas oo kamid ahayd gawaaridii ay golaha deegaanku miisaaniyadda 2019 ay ku dareen gaari booyada oo gaar u noqon doona ciidanka dabdamiska oo caawin doona gaadiidka loogu tala galay inay baktiinta dabka ka qayb qaataan waqtiyada howlgalka ku jiraan iyo gaari isku rogaa oo isaguna ku biiri doona gawaaridii aynu nadaafadda magaalada u isticmaalanay oo cusub runtii si aynu nadaafadda kor ugu qaadno dawladda hoose Gabiley waxay ka mid tahay dawladaha hoose ee nadaafadda gacanta ku haya runtii qashinkana sida bilaashka uga gura magaalada markaas aynu sii xoojino hawshii nadaafadda ee magaalada iyo korna loogu qaado bilicda magaalada runtii labada gaari baan ugu tala galay in labaduba insha Allah adeega ay ka qayb qaataan waxaan jecelahay inaan taliyaha ciidanka dabdamiska ku wareejiyo booyada aan ugu tala galay dabdamiska talabaadna waxay ku biiri doontaa gaadiidka nadaafadda ee magaalada waxa la wareegi doona agaasimaha arrimaha bulshada aqalkii soo kordhaaba xashiish buu soo kordhinayaa dad buu soo kordhinayaa bilicna waa soo kordhinayaa markaas ayna labadaasi ay isku dheelitirnaato waa inay wada socotaa magaalada iyo awoodda xashiish dawladda hoose ee Gabiley 4 shaqo oo ayna dawladaha hoose ee dalku gacanta ku wada haynin bay gacanta ku haysaa xashiishka shirkada ayaa badana ka gura dawladaha hoose ee dalka oo shirkada kama guraan aqal kasta oo Gabiley ku yaala dawladda hoose Gabiley baa gurta sariimadaha magaalooyinkeena waaweyn waad ka wada warqabtaan intooda badan private base ka yihiin sariimadaha dawladda hoose ee Gabiley iyada ayaa gacanta ku haysa qashinkooda nadaafadooda ilaalintooda maxaan ku dhaahdaa xamaamkooda iyo bulaacadahooda iyo wax walba kawaanada oo aad ka wada warqabtaan magaalooyinka in buuq badani ka jira qaarkood oo shirkada jiraan dawladda hoose ee Gabiley waxay gacanta ku haysaa kawaanada ee Gabiley kawaanada waxa ku baxa iyagana qashinka ugu badan ba ka soo baxa biyaha ugu faraha badan la ayaa lagu meeraa awoodahaasi oo dhan dadka waxba ma saarno oo wax gaara servicekaasi kama qaadno ee shaqada aan u hayno bulshada uun bay kamid yihiin wax qabadka maanta la qabanayo ee dawladda hoose maanta ay qabatay ama ay qabanayso waxa kamida gaadiidka imikayna daba yaale ay kamid tahay booyada soo kale waxa halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo taliyaha ciidanka dadamiska gobolka ka mahadnaqay gawaarida maanta lagu wareejiyay wax qabadkooda in maanta lagu wareejiyo gaadiid kamida gaadiidkii hore baan uga guri jirnay khashinka kaasi oo ah isku rogo cusub oo ku soo biiri doonta isku rogooyinkii hore uga qaadi jiray dawladda hoose khashinka run ahaantii taasi oo uu ka duulayo gudoomiyaha golaha deegaanka iyo dhammaan maamulka filintu eegaya adeega asaasiga ee bulshada u hayso dawladda hoose taasi oo ah dawladaha hoose meesha kaliya ee gacanta ku haysa dhammaan adeegyada asaasiga wada qabsano aynu ka shaqeyno horumarka iyo waxtarka iyo kor u qaadka bilicda waxaan ka gudoomiyaha gaari aad iyo aad aan ugu baahnayn hawl weyn noo qabtaan ka dadamis ahaan run ahaantii waa horumarka maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii talaabsanayso degmada Gabiley
khaasatan ay hogaaminayaan golaha deegaanka hormuud ka yahay gudoomiyaha Amiin. waxaa noo sharaf ah maanta inaan halkan ku qaadano gaarigaas oo toos u wareegno xaradaydina la tagano. maayarku soo kordhiyay ama maamulku soo kordhiyay iska rogada imika xagga midigta iga xigta isla markaa waanu naawilaynay inay horo muxuu ahaa loo noogu keeno. waxa kale ee iyaduna hore ugu jirtay booyadan dabdamiska oo maayarku si degdeg ah intuu u keenay booyad uga dhigay labada baabuur baa nadaafada ugu jiray waanu ku mahadsan yahay. waxaana ka soo baxay halkaa ciidamo xooga oo dabdamiska ah oo imika sharaftooda magaalada 100% gobolka ku soo kordhiyay. gaariga kala baydh iyo san imika halkan jooga waa 6 baabuur Gabiley ballaarinta ay ballaaratay darteed waa gobolka kaliya ee lagu arkayn meel kaliya oo qashin yaalo. taasina waxa leh maamul ku dhagan nugul markaad aragtid oo baahida markay baahi jirtaba aad u sheegato ku nugul markaad aragtid wax walba sida yihiin bay u qabsoomayaan. waxa ku mahadsan gudoomiyaha golaha deegaanka iyo gudoomiyaha golaha deegaanka maanta joogaba noo hirgashay gaarigan dabdamiska ee weyn ee imika jooga sidii loo soo iibiyay maayarka hortiimuu dhaqaaqin lacag dhowr iyo $10,000 ayaa gashay intii maayarkan imika joogay ma isaga kiciyay tanna isaga iibiyay kuwan kale ka dambeeyay maayarka iibiyay ilaa gaariga marka laga soo qaado kala beere caafimaadka golaha deegaanka ee imika joogay mas'uulka uu ka yahay gudoomiyaha golaha deegaanka Maxamed Amiin Cumar Cabdi. sidoo kale maayarka magaalada Gabiley oo ay weheliyaan golihiisa ayaa dhagax dhigay dhismaha diir lagu wareejin doono godka weyn ee qashinka ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka si loo ilaaliyo nadaafadda fayadhowr iyo bilicda magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley. waana mashaariicda 2019 laga hirgeliyay gobolka Gabiley dibna loogu celinayo cashuurta bulshada. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi maayar ku-xigeenka iyo agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka waxaana ay yiraahdeen si laba ujeedaba aynu u helo. ujeedada koobaad waxa weeye si area-da xashiishka loogu ridayaa ay runtii u noqoto meel kantaroolan oo si fudud loo maamuli karo iyo talabaad oo ah in deegaankan uu godku ku yaalo uu ka nabad galo runtii oo aanay wax dhibaato ah oo xagga biyaada iyo deegaanka aanay u geysan oo ama xashiishka ama waxa runtii aanay ku faafin. marka wuxuu ka mid ahaa mashruucan mashaariicda 2019 ay ku jira miisaaniyadda golaha deegaanku ansixiyeen ee annagana fulintiisa aanu xil saarnayn deyr 200 iyo 200 mitir ayaa runtii lagu wareejin doonaa maanta dhagax dhigana. insha Allah taala waxaan rajaynayaa inuu wax badan ka bedeli doono nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka uu godku ku yaalaba una fudaydin doono waaxda arrimaha bulshada runtii la dagaalanka aynu kula jirno qashinka iyo kor u qaadida nadaafadda magaaladaba. wuxuun bay ka mid yihiin runtii hawlaha aan wadnaa. sanad walba dawladda hoose ee Gabiley waxay leedahay qorshe sanadla ah. waa ka warqabteen 2018 waqtiga aynu soo gabagabeynay 2019 maalinba mashaariicda ama wadooyin leh ama gaadiid leh ama dhismayaal kale leh waxay ka mid yihiin waxyaalaha aanu qorsheynay in horumarinta deegaanka runtii laga qayb galo. marka waajibaadkayga aanu gudanayna bay ka mid tahay. waxaan rajaynayaa in sanadka bishii 7 baynu hadda ku jirnaa bisha 7 ilaa 20 mashruuc in ku dhow ayaa nooga hirgalay mashaariicii goluhu qorsheeyay. inta dhimanna waxaan rajaynayaa muddada 5 bilood ee hadhay inaanu ku dhameystiri doono ilaahay idinkii. dadweynaha runtii magaalada Gabiley waxa ka mid tahay magaalooyinka ugu nadaafadda badan Soomaaliland. dawladda hoosaana nadaafadeeda gacanta ku haysa. imikana waa idinka ka warqabo si aynu nadaafadda iyo bilicdaba kor ugu qaadno ololo weyn oo aynu geedka garanwaaga kula dagaalamana ba ka socda. imika deyrka sida uu maayarku sheegay waa deyr jaajuura oo marka hareerta laga soo socdo dadku waa in daar la moodo oo aan la kala garan. insha Allah leedka magaaladana waan ku xidhi doonaa leedkana waan soo gaarsiin doonaa. waxay noqon doontaa meel godki xashiishka loo garan maayo ee godki bilicda la oran doonaa shidhow godka bilicda la oran doonaa. waxaan ugu tala gashanahay guriga laga soo qaado ilaa wadadu soo marayo ilaa halka godka la dhigayo ilaa iyo hareerihiisu inaan loo garan meel xashiish. marka aanu halkan waxaan maanta dhagax dhigaynaa
waa goobtii fayadhowrka oo aanu ku wareejinayno daar runtii farxad iyo bogaadin baa inoo tahay inuu maanta guddoomiyuhu noo dhagax dhigo dayrka aanu ku xidhayno godkii aanu ku shubaynay khashinka kaasi oo ahmiyaddiisu ay tahay sidii aanu ilaalin lahayn deegaanka oo qurxoonaada ayaa ay ka mid tahay bilicda iyo wanaajinta iyo fayaqabka dadka iyo deegaankaba ahmiyadda ay leedahay kii ay ka duulayaan maamulka fulinta iyo golahooda wada jira iyo annagoo adeegayaashii bulshada ahba sidaa awgeed ayuu guddoomiyuhu noogu dhagax dhigay halkan maanta aad iyo aad baanu uga mahad celinaynaa farxad iyo reenreen iyo bogaadin bay noo tahay Yalla Xaji telefishinka qaranka Gabiley.